السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لما نقيات يوتيوب سلامي عشان wuxuu ku saabsan yahay sideen ugu saar lahayn Google Play Store-keena Google Play Store macnihiisu waxay tahay waa meesha mobilka kala soo degaysid application-ada ka soo download-garaysanaysid ee Google Play Store-ka mobilkaaga Android-ka mobilada kale ma aha iPhone-kii ku kale ma aha laakiin waa mobilka Android-ka barnaamijyada Android ku shaqeeyo haddii Google Play Store-ka halaabo sidee cilad ugu saari kartaa si sahlan marka aan ku tuso shirka aan bilaabo marka si aad ugu saartid waxaad leedahay mobilkaaga fur kadibna waxaad tagtaa Google Play Store-ka ayaad furaysaa si aan ku tuso cilada nooca ay tahay waxaan sameynayaa inaan application ku qoro meeshaas tusaale ahaan waxaan ku qoraa meeshaas Facebook oo sahlan Facebook markaan ku qoro searching ayuu sameynayaa kadibna wuxuu ku saarayaa Facebook markuu Facebook kusoo saaro aniga hadda waxaan ku tijaabinaa dhan male WhatsApp aan ku tijaabinaa markaan install ayaan leeyahay si aan u aragno cilada inuu ku shubayo iyo inuu cilada soo saarayo accept ayaan leenahay waa ogolnahay kadibna wax yar sug haddii download soo qoro okay waa laakiin hadda ujeeda errorkaas ayuu ku soo qoray iyo koodkaas ku soo qoray inta badan koodka noocu raba ahaado laakiin cilada isku si ayaa loo bixinaa wayna fududahay marka waxaa ka soo bax kadib waxaad tagtaa setting-kaaga ayaa tegaysaa kadibna waxaad tegaysaa meesha ku qoran tahay apps ama application apps ay ku qoran tahay laakiin adiga wax ku qoran application dhammaystiran kadibna waxaad tegaysaa meesha ku qoran tahay download lama rabo runna lama rabo waxaad tegaysaa all application meesha ku qoran tahay all-ka ayaad ku dhufanaysaa kadibna markaad tagtid waxaad raadinaysaa Google Play Store-ka si tartiib ayaa u raadinaysaa Google Play Store-kaaga kadib Google Play Store ayaad double click siinaysaa kadib waxaad leedahay force stop ayaa leedahay si aad u joojisid okay kadibna waxaan leenahay clean data ayaan leenahay ku dhufo kadibna yes kadibna waxaan leenahay clean cache ayaan leenahay kadibna wax yar ayaa sugaysaa si automatic wuu nadiifinaa kadib back ayaa soo leedahay marka waxaan ku laabanaynaa Google Play Service ayaan ku laabanaynaa ujeedaa Google Play Service ayaa tegaysaa ku dhufane kadib markaa ku dhufatid waxaad leedahay clean data ayaa leedahay si aan u clean gareyno datadiisa gudaha kadib yes kadibna clean cache kadibna install first markaas ayaan leenahay kadib okay tijaabada markaan sameyno intaan marnay waxaa ogaanaysaa haddii uu mobilkii WhatsApp-kii le isla sidii haddaan usoo dhalan gareyno oo shaqeeyo intaas waa cilada marka waan ka saarna laakiin hadduu shaqeyn waayo cilada maan naqaan inaan ka saarno marka waxaan sharxayna marka waxay noqonaysaa wax qalada kadib waxaad leedahay setting-ka kusoo laabo kadib waxaad tegaysaa meesha qoran tahay Gmail-ka ayaad tegaysaa waxaa ka remove gareynaysaa Gmail-ka haddana double click ayaa siinaysaa ama la gacanta check ku sii amar kadib waxaad leedahay koonaha ayaa tegaysaa laakiin aan hoos ayuu yeelaa qaybta koonaha oo aan ka dooranayo remove account ayaan ka dooranaa si oo aan Gmail-ka ugu masaxo ama aan ugu tiro kadib waan jeedaa koonaha markaa imaaday click markaan ku siiyo remove account ayaan leeyahay kadibna waxaan leeyahay remove account ku dhufanaa mar kale sidaas emailkii nagu ka tiray marka emailkii ugu dib ayaan u soo gelinaynaa si noogu bilowdo si sahla kadib ka soo baxo loo dhan kadibna waxaa lagaga baahan yahay application-ada ku kacsan oo dhan waa inaad stop garaysaa marka dhexda ku dhufid mobilkaaga macnaha wuxuu ku tusaa application-ada kacsan oo dhan iyo ku tusaa processor-ka gudihiisa ka furan si aad ugu tirtid waa kuwan dhinac ama gees mid aad u jeedaysaa si sahla inta badan mobilada dhinac ayaa loo jeedaa sida dhinaca midiga bidixda loo wadaayo kadib Google Play Store galaysa wuxuu ku leeyahay emailkii aan ku kaliya Google Play Store-ka gali si uu kugu furmo Google Play Store-ka Google Play Store email aan ma shaqeeyo exiting-na waxay leedahay emailkaagii hore new mada samaysan mid cusubna new ayaa leedahay laakiin kii hadda leeba isticmaalina waxaan ka bedelinaa ma lahan kadib Gmail-kaada gali ama ka bedel ama ka bedelna ayuu muhiimad u tahay inaad Gmail account aad leedahay ama samaysatid mid cusub ani account-kayga ayaan gelinayaa si aan geliyo Axmed Shafii kadibna password ayaan gelinayaa okay naga sayaan leeyahay kadibna okay ayaan leeyahay kadib marka okay dhawo wax yar u kaadi waxa laga yaabaa xoogaa yar inuu qaato si oo set up u sameeyo Gmail-kii inuu ugu xirmo Google Play Store-ka kadibna wixii barnaamij aragtay si toos ayaa soo dhalan garaysan kartaa macnaha muhiimada u fahmayna cashirkan waxay ka mid tahay cilada inta badan dadka dhibaatada ka haysatay ka tahay ee qaada mobilkooda ee nimanka farsamada u geeyaan dhahan
cilada lagu sameynaa ama inta dhowr saac soo laabo ama lagu dhaho beri soo laabo kale, laakiin wixii la sameynaya second ay yihiin, laakiin marka adiga secondka lagugu sameeyo lacagta ma bixinaysid. Saas darteed waa in lagugu dahayaa, farsamaday ka mid tahay, dadka farsamo yaqaanada qaladkaas u shaqaystaan. lana ka saama kadib waxaa leedahay no thanks ayaa leedahay. sidaan ugu gudubno klikaarka ma rabno. kadib markaa gudubto next ayaa sii dooranaysaa. backup ilaa hadduu kugu lahay hore kugu shaqeynaya gmailka isticmaalaysay, wixii information contactigaaga iyo wixii oo gmailka kugu jiray oo si automatic u qaaday ayuu kuu soo celinayaa. next ayaa le ka gudub. kadibna waxaan leenahay accept ayaan leenahay. mana gmailka aynu ku shaqeyn rabnaa, ma ogashahay accept ayaan leenahay saan wadno. kadibna gmailkii sidaas ayuu kugu furmay. macnaha markuu kuu furmano applicationkii markaas u baahan tahay in aad soo degsatid ayaad sameynaysaa. Hadda whatsapp ayaan ku qoraa meeshan. kadibna waxaan leeyahay enter ama kili ku sii siduu search u sameeyo. kadib markuu search sameeyo whatsappkii ku soo baxaya. kadib waxaan leenahay ujeedaa install ayaan leenahay. kili marka ku dhufano si aan ugu shubno mobilkeena. sababta markan waxaan ku tijaabinay whatsapp. haddii aan programka ku tijaabino waxaa laga yaabaa in la dhaho qofkan programka soo diidanay, laakiin isla whatsappka ayaan install leenahay si aan u hubino barnaamijka. ardaydana igu istafiidaan faa'iido badan ka helaan sidii barnaamijka u xaliyaan. accept ayaan leenahay sidaan usii wadno barnaamijka. marka hadda haddii uu soo qoro in download uu bilaabo, okay, waa barnaamijka cilad uu ka baxay. haddii uusan soo qorin errorkana cashirkan wax kama jiro, si toos la soco. okay, ujeeda exact wax ka duwan ma lahan. tijaabadan sameynayna waa ku guuleysanay, xataa mobillo badan aan ku tijaabinay sidii u shaqeynayaan. marka insha Allah bidna kadib sidaas ayaa sameynaysaa. data clean iyo cashkan nadiifinaysaa, software leedahay, emailkana ka masaxaysaa. muhiimadana waa intaas. waxaa laga yaabaa inta badan dadka farsamada adiga hawsha haddii ku tusaan way ku adkaanay marka shaqadoodii. markaad wax lagaga baahan yahay barnaamij kastaba oo baratid qofka walaalkaa dhibaataysa ka caaw sidaa cilmigu baratid. markaa hoos soo dejino meesha application kor furno, waxaa ku qoran meeshaas in application successful installed waa lagu shubay. saa darteed waa ku guuleysatay in whatsappkii aan ku shubno ama wax kastoo google play store kasoo langaris ku shaqno oo binadar aadid sidaas ugu shaqeynaa. applicationkii aad kusoo shubtay 100% oo ujeeda oo ku shaqeeyay. okay, haddaan hano kadibna aan isticmaalo passwordkii aan ugu talagalnay iyo isticmaal telefoonkaaga sidaas ayaa usiisay hawsheeda usii wadanaysaa. marka insha Allah way fududahay. wixii aqoontaadana walaalkaa u faa'iideey. muhiimadana waxay tahay inaa cilmiga la kala faa'iido. insha Allah bidna kadib waxaan malinaa wixii mataqaanaa akhyaartiitu waa namaysantihiin. comment like sharing la sameyseen. muhiimadana comment share waxay cadeynaysaa qofka walaalkaa dambe imaanayo marka ka mahad celis videoga aad fahanteed runta ka sheegtid wuxuu dareemayaa inuu cilmi meesha yaallo. videogan uu yahay video wax laga faa'iiday, adigana maslaxi ku tahay oo qofkii cilmigii oo ka faa'iideyna noqotay. qofkii soo sameeyna wuxuu dareemayaa inuu wax sameeyay video kale isku dayaan sameeyay. marka waa mahadsantihiin. adinkana insha Allah ilaahay cilmi naafic Allah naga dhigo dhamaanteen. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. wajazaakumullahu khayran.